saad la socoteen wali waxaa ka socda magaaladeena hawlgalkii ICE oo gobolada kale oo Mareykanka ka socda gaar ahaan waxa moodaa community-geena inuu target ahaa waxaad ka garanaysaa magaalooyinka Columbus, Minneapolis iyo Seattle waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo dhowr qodob oo waxyaabaha cusub ah hore waxaan uga hadalnay qofka xuquuqda uu leeyahay haddii waqti aan ka helno hadda waa ka sal doonaa laakiin waxaan rabaa inaan marka hore ka hadlo dad la soo daayay ma jira oo ICE ay qabatay intii operation uu socday 4 wiig oo u dambeysay ilaa iyo hadda dadka la soo daayay oo ICE ay qabatay waa 7 qof oo Soomaali ah dadka la qabtayna saa hore in ku sheegay waxa la geeyay 3 xabsi oo ku yaala gobolka Minnesota xabsi waxa la yiraahdaa Wilmer buu ku yaala xabsina waxa uu ku yaala Albert Lee oo waxa la yiraahdaa Freeport xabsina waxa uu ku yaala Shelby County baa la yiraahdaa Elk River saddexda gobolkan ku yaalaan ee qaar kamid ah 11 qofna waxa loo qaaday Louisiana iyo Nebraska iyo Texas iyo Iowa okay dadka la soo daayay hadda marka maxay yihiin dadka la soo daayay waxay isugu jiraan 3 group dad waa dad si sharci darro lagu qabtay oo ahaa dadkii maangaliyada sugayay oo application-kooda xariisnaa oo sharci darro lagu qabtay sababtoo ah annaga as Soomaali ahaan community boqolkiiba 97 waxaan nahay dad wadankan sharci ku jooga Soomaalida sharci la'aanta America joogta waa 5,000 qof 3,000 oo kamid waxay soo galeen 4 sano u dambeysay waana dadka inta badan soo maray wadamada Latin America iyo kuwa kale oo meel oo gudaha iska dhiibay iyo dad TBS haysta qofka TBS haysta lama xiri karo sababtoo ah waa qof mangale ku jooga oo xaaladii wadankiisa looga soo qaaday taagan tahay 18 kilomitir loo cusboonaysiiyo okay iyo dad haystay wax loo yaqaan wadahoolna asylum waxa waaye qof wadankan sharci ku yimi dambi galay sharciga laga qaatay 15 years 10 years ku jooga America waraaq shaqo sababtoo waxa la yiri lama qaadi karo xaaladda wadanka Soomaaliya ka jirta dadkaasna waa ahay okay taas waa dadka la soo daayay ma jira intii operation uu jiray Mareykanka uu ka socday dad Soomaaliya oo la dhoofiyo la qaaday sabtidii dhaweyto waxa la qaaday dad Soomaaliya oo laga soo qabtay Mareykanka oo dhan oo laga dajiyay magaalada Muqdisho badana waxay sumi jireen ICE way soo jireen dadka ilaa 9 qof markay gaaraan ama 8 baa la qaadi jiray laakiin hadda sida aan filayno tirada ay qaadeen aad bay ugu yartahay waa tiro u dhaxaysa 25 ilaa 33 baan filaynaa in laga dajiyay talaado laakiin numberka waa sax waa heli doona laakiin dadku ma badna in la qaado laga dajiyo okay ICE hadda hawlgalkii ma ka socdaa Minneapolis laakiin waxa moodaa inuu ka duwan yahay sidii maalmihii hore way joogaan ICE ilaa waxa ka jooga kontameeye meelaha mataqaanaa hadda operation ka subiyaan ama Saint-Paul ha ahaato ama Jaska metro area oo dhan Minneapolis laakiin culayskii badnaa hadda waxa moodaa inuu u wareegay magaalada Columbus Ohio oo sida warbixinta aan ku hayo aad iyo aad hadda barashar badan oo ka socdo oo iyada laftooda lagu qabtay ilaa iyo dhowr 20 Soomaali ah okay marka qodobka afraad oo aan rabaa inaan ka hadlo waa dadka imaan doona January 17 dad runtii xaq jir ah oo khatar ah oo runtii dadka looga digay oo waliba sheegay inay imaan doonaan xaafadda Cedar Caramel dadka binaha meelaha u badan yihiin Soomaalida dadkaas waa xaq jira waa dad kitaabka wata waxay wataan doofaar waa dad runtii dawladdu iyo state-ku loo diyaar garoobay annaga as mas'uuliyad ahaan waxaan propose gudbinay dadka inay loo ogolaan inay madam Minnesota sababtoo ah sharci waxa dhigaya oo state-ka federaalka hadiiba dadka imaanaya ficil ay suubinayaan ay gelin karaan khalkhalka amaan oo imaan kara halka isku dhac lama ogola waddanka Mareykanka hadii ficilka ay ku dhaqmayaan iyo waxa ay suubinayaan uu keeni karo qalalaaso isku dhac lama ogola marka horta waxaan xooga saaraynaa in laga mamnuuco state inay imaan laakiin waa process socda ma ballan qaadi karno taas marka in sheeg waa mid marka way imaan doonaan waan ogahay qofka halkaas ku arko kitaabkiisii oo lagu subinayo dadku ma isceli karaan reality-ga fiican dadka moral bay leeyihiin diin bay leeyihiin marka runtii waxaan ka digaynaa oo runtii annagu sideedaba waxa la rabaa falansiga waa in laga fogaado falansi annaga ma rabno wax falansiya sideedaba wax
dadka hadda ay isku banaan baxaya wal Google ku banaan bax hadal duubo laakiin wax gacan ka hadala waa mamnuuc sababtoo ah qofka hadhooto dhibaato ku keenaysa ogaadana ay laftigeeda ifri wax dhaca waa document gareynaya kaamirooyin bay wataan laftigooda dadka waa aragteen kaamiray wataan ay ifri ficil dhaca waa la duubaya sidaan wax u duubayn marka balance halka fuwa yaan baraf lagu tuurin yaan la dagaalamin qofku xaq wuxuu u leeyahay in uu duubo la hadlo haddii halka lagu istaajiyo tirada maxarabta hadduu ku yiraahdo aniga waxa ays banahay maxay gartaa baa laga weydiinaysaa halkaas ka bisla sababtoo ah ays horta iyay qaban kartaa ays waxay qaban kartaa laba qof iyagu ay u socdaan oo dokumentigiisii ay wataan oo ay raadinayaan warranty ah oo waliba qofkaas uu yahay maxkamad in ay go'aan soo saarto ila qabto iyo qof mar hore la yiri wadankan ka bax saddex jeer maxkamad tagay sharcigi loo diiday abiil qaatay abiilka loo diiday oo ahaa qof sugay in dib loo celiyo labadaas qof gurigaaga haday soo garaacaan ha ka furo gurigaaga haday soo garaacaan waa la hadlaysaa waxa leedahay yaa waayo qof gurigaaga garaacay waa inay ka jawaabaan haddii ay ku dhahaan waxaan wadanaa magaca waa weydiinaysaa qofka u socdaan qof su'aasha waxa waaye ma haysataa waraaq warranty oo gurigaan aad ku baarayso su'aashu waa maya marka taas runtii waa in laga digtoonaado haday dhacdo marka in xoog lagu kahaysto xasbina remain silent waa musaysa xaq baa u leedahay lama hadlaysid 48 hours waxa ku imaan lawyer-kaaga okay ugu dambayn dad community-gan waxaa jira saddex wiiga u dambeeyay saa hore u sheegay ilaa Soomaalidu isku sheekaysaa waxa la kala daacadina 22 bay ahaayeen 9 way gashay ay rikabta baa lagu kiciyay mid barfigu ku dhintay 12 waxa hadda ku xireen xabsiga magacadoodii waa haynaa liiskoodii dadka qaar baan la soo xaray familiyadii waa tusnay qof aan family hayna ma tus karin legally waa privacy si dadkaas aan u caawino hadda marka maxaa dhacay dadka dad waxay ahaayeen inta joogay dacwo sugayay application waxa haysnaa shaqaysanayay dareeflaysa haystay company ka shaqaynayay soo go'aan la gaaray dacwadooda horta waa bilow aadane waa khaldameen mistake bay sugayeen mustaqbalkooda ku ciyaar labo waxay galeen khatar waa aragtay barafka dhacay below zero ila marka xad kale waa loo yahay una okay dadkaasi marka hadda qofku horta wadankan goorma ka bixi karaa sideeda legal qofku wadankan wuxuu ka bixi karaa legally markii looga diiday sharci adduunka meesha dadka aad ama Canada aad ama Europe aad hal su'aal baa lagu weydiinaya xagee ka timi America okay America ma ka xareysatay maangaliyo ha ma lagu diiday maangaladii maya wala soo celinayaa marka lagu soo celinayo maxaa ku dhacaya ays waa ku sugay wala ku xiraamo maxaa markii gashay in loo yar lagu qabto labo dacwadaadii waa guurtay asalka ahayd waa in dacwo lagu xareeyo saddex inta la xareyn waa in lagu subiyo wayfarka maxaa waaye dambiga aa gasho xartay afis barfiiri dadka ay daawanaya caaw iyo dadka halkan jooga please dadkeena halkan jooga waa application-ka dacwadu xareysan yahay ogaada wadankan sida anigu hadda legal aan ugu joogo oo idinku legal ugu joogtaan bay waxay ugu joogaan legal waxa la yiri wadankan ka shaqeysta qaarkood waxa la sii waraaqa 5 sano ah jooga ilaa inta go'aan la gaaray go'aan wuxuu noqon karaa ma bi 10 sano ma bi 15 sano ma bi 5 sano inta adiga legal ba ku joogsa marka waa inaan ogaano xaqiiqdooda okay ugu dambayn falgalka hadda ay subisay madaxda gobolkeena runtii saa ogtiin shalay barisliis ay qabteen maxay ka digeen marka madaxda gobolka labada maayar ee Minneapolis iyo St. Paul gudoomiyaha gobolka shalay waxa laga digay hab dhaqanka ay isku dhaqmayso inayna ahayn wax sharci ka baxsan ayeen wax sharci ka baxsan ayeen oo fowda oo keeni karta inay wax dilaan ama in la dilo sababta waxay subinayeen wax ka baxsan hanaankii iyo nidaamkii u yaalay hay'adda ICE waxaan ognahay dad Soomaaliya oo Mareykan in la qabtay la jir dilay dhibaato loo geystay la xiray waxa kamid ah wiilkii mubashir waxa kamid ah gabadhii Soomaaliyeed ku lotay idayna okay dadka marka maxaa lagu subiyo waxa lagu subiyo wax oo ka baxsan sharciga dadka marka dambigooda ma isaga haraya maya
ifri dambi oo dhacay waa document gareynayna waa register gareynayna waa la qorayaa waxa la aaday Washington DC ICE waa Department of Homeland Security waxa ku shaqeeyaan sharciga iyo qawaaniinta u taala Mareykanka sharciga bas kuma shaqeeyaan dambi walbo ICE ay geysatay mana aha gobolkeena kaliya ogaada gobollo badan bay ka geysteen dambi hadda hearing baa soo galay Washington mana looga haray cid walba oo dambi geystay waa la xisaabtamaya waa la soo fariisinaya dukumentiyada okay hadda marka ICE ma laga yaabaa inay soo laabato operationkii ha wax dhici kara operationkii ayadu tadhacayo arkayna inay keenaan laakiin ogaada dadka hadda hadii qofka marka hadda walaacaya dad badan waxa jira hadda su'aal weydiinay oo la green card baan joogno bixi karna qaashan horta qof ogaada iska dhaaf qof wadankan sharcigu waa saddex qaybsama I94 green card passport qofku marba hadii wadankan sharci lagu ogolaado waa in liiga lama hadli karo waxa ku soo haray kuwa asylumka annagina la midiyay waa inuu la midiyay marka waraaq shaqaaba la siiyay waxa la yiri shaqaysta jooga inta laga gaarayo aan sharciyin waxa aan markaas waa legal marka ma bixi karaan maya dadkaas kana ma karaan waa shaqaystaan ma la qoban karaa legal maya ma la qoban karo example had iska dhaaf iyaga kuwa waxa jira withhold asylum haysta maxaa kuwaas waa dad wadankan joogay 20 years 15 years oo judge sharci uu ka qaaday oo la siiyay waraaq la yiraahdo CAT oo Geneva Convention ah in u dhaci kara torture wadanka ka yimaadeen ama la dilayo dadkaas waxa baleeyay wadanka Mareykanka way joogayaan inta dalkoodii uu ka noqonayo ammaan kuwaas xataa la qaadi karo maxaa la yiri wadankan way ku noolaan karaan laakiin waligood sharci kama helayaan sababtoo ah sharciga waa laga qaatay jas maxaa la siiyay inay joogaan wadankoodu inta uu nabadgelyo ka noqon karo marka maxaa moodaa in asylum suuqiyo oo clean qofkaas waxa la dambi galay oo sharci laga qaatay bal lama dhawaan karo lamana qaadi karo ilaa Soomaaliya marka runtii barnaamijkan waxaan soo goynaa caawo hal islaaliyo arinta go ahead كمنتو شقية الإمبريشن كسومالي كوكبة سيفعم وحنا كتاب وحنا على أرمو لكن سوق على أفراد السنة صعد صلب صار في أوبايل إنه مدفعينه جدا مبارح ومعنا تسجيل على هذا هذا أرنتاس محاكوت وسؤال في عمو ودي أرنتاس تاسكلي معها لا بس شيء بيمامو كان سوبيان مد هذه الشيء ومد dadkii xilligii Biden America siyaabo kala duwan ku soo galay in dib loo baarayo arintaas waa run waa soo sheegtay way soo propose gareey waxay kala biyaan hadda cusub ifri shaqo socota immigration qofkii sugay green card qofkii sugay ID4 qofkii sugay dhar qofkii sugay passport kul wal jooji anaga marka asal legal team iyo qolinkan u dooda immigration muxuu ahaa dadka minority-ga sharci sugay iyo attorney general gobolada 14 gobol waxaan xareynay lawsuud labadii bishii December bisha hadda caawa ah labadii baan waxaan fayl gareynay daawo waxa la sugayaa jawaab maxay qaadan kartaa it could be 60 days it could be days daawadaas marka maxay ahayd saddex shay baan xareynay baan dalban ko in dadka xiran oo shaqada ku xiran la soo daayo oo la qabtay oo illegal ku xiran dhinteenka maxaa kamid ah dadka aan ka hadlaa sayamka oo legal ku joogo dadkan oo la qabtay labo waxaan kaloo dalbanay dadkii la yiri 4 sano ka hor baa la baaray inay tahay sharci darro sababtoo ah maxaan ku doodnay waxaan ku dooday Trump wuxuu yiri 4 sano ugu horeysay dawladda Amerika ma jirin waa micnaheed haddaan hadda ilaa 4 sano ka hor dawladdii ugu horeysay ma aqoonsan waa mana jirin marka in aan la baarin saddex waxaan kaloo ku doodnay waan xareynay in shaqadii la fasaxo sababtoo ah dad waxa sugayay kamid ah hadda ballama haystay dhaar ah 19ka 20ga marayay baa jira dadka marka hakad baa la geliyay okay dadka marka dhaarta sugayay ogaada hadduu jiro hadda qof daawanaya ama qof halkan fadhiya oo lahaa ballan interview ama ballan dhaar oo la kansalay wala sud gareyn karaa laakiin lacag baa ka hagtay laba option marka haysta inaan sud gareyno oo lacagta aad bixiso oo loo gooniya sud gareeya oo isbixisa oo lagu siiyo ballantaadii iyo inaad sugto go'aanka weyn oo soo baxay 6 days
labada option ba waa haystaa marka let's say hada duu adaa waxa la 19 dhaar baa suus dadka la kasala ku jirta laba option baa haystaa dacwada guud oo la xareeyay go'aanka inaad sugto iyo inaad u tagto special lawyer oo loo sud lagu subiyo si dhaartaadii lagu ogolaado